yaa wacsiiyey qofka ilaahay wax siiyo madaxweynihii ugu mushaarka badnaa Afrika oo doonayo in guri loo qaaraamo inkastoo kooxda Farmaajo ay aad u qaranayaan inta la egta mushaarka madaxweynaha ayaa haddana xogtan la ogaaday hay'ad u qaabilsan maamulka miisaaniyadda Soomaaliya waxa ay cadeynaysaa in Farmaajo uu ahaa madaxweynihii ugu mushaarka badnaa qaaradda Afrika isla markaana sanadkii Soomaaliya uu ka qaadanayay lacag dhan $720,000 kaalinta labaad waxaa ku jira madaxweynaha dalka Cameroon Paul Biya oo qaata sanadkii $620,000 halka saddexaadna uu ku jiro boqolka dalka Morocco kaasoo sanadkii mushaar ahaan u qaadanayay lacag ku dhow $488,000 kadib xil wareejintii kooxda nabad iyo nolol waxaa maalmahan is soo tarayay guux ka dhex jira bulshada kaasoo ciwaankiisu yahay guri loo dhisay madaxweynihii xilka looga adkaaday Farmaajo bishii hore ujeedka ka dambeysay aasaaska mashruucan ayaa ahaa in indhaha beesha caalamka tusiyaan inay shacabka Farmaajo abaalgud uga dhigayaan inay guri u dhisaan saddex qodob oo tilmaamaysa ujeedka mashruuca guri loogu dhisay Farmaajo goordhow waxaa dhici doonta caleemasaarka madaxweyne Xasan Sheikh ujeedka samaynta mashruucan ayaa ah in gami ahaanba meesha ka saaraan hadalhaynta xafladda caleemasaarka madaxweynaha iyadoona dalku soo gaareen wafuud ka kala socda dhammaan beesha caalamka lacagaha ka soo xarooda mashruucan ayaa loo isticmaali doonaa carqaladeynta dowladda cusub iyadoo ujeedku yahay in bulshada laga dhaadhico inaysan dowladdan sii socon karin tusaale ciidan ayaa la samayn doonaa oo dagaal lagula geli doona xukuumadda Xasan sida ciidankii badbaado qaran oo Farmaajo u diiday inuu xilka muddo-kororsiga sii wato kuna qasbay inay doorasho dhacdo mashruuca guriga ujeedkiisu waa inay qabsadaan dhammaan warbaahinada caalamka iyadoona lacag lagu bixin doono faafinta ciwaankaas balse midda falanqaynta u baahan ayaa ah Farmaajo ma u baahan yahay dhaqaalahaas Farmaajo intii uu madaxweynaha ka ahaa dalka wuxuu mushaar ahaan u qaadan jiray bishii $60,000 isugeynta sanadkii ayaa noqonaysa $720,000 Farmaajo waxa uu xukunka hayay 4 sano oo lagu daro 1 sano bar oo sharci darro ah isugeynta lacagaas ayaa noqonaysa $3,960,000 iyo xuquuqda maamuus ee madaxweyne Farmaajo uu dowladda ka qaadan doono inta uu nool yahay taasoo u bilaabatay maalintii uu xilka wareejiyay dalka waxaa ka jira abaaro ba'an dadkii waxay laayihiin waxa ay cunaan iyo waxa ay cabaan Farmaajona waxa uu ku jiraa sidii uu malaayiin guri ugu dhisan lahaa duruufo adag ayaa dadka Soomaaliyeed meel ka soo joogaan baydhabo waa soo arkay laakiin meelo badan aanan tegin oo soo arkin oo sida ahaa jira galabta riboora la isii 7,700,000 oo qof oo Soomaali ah baahi inay qabaan baahi waliba zaa'id inay qabaan ilaa 1 milyan iyo hadda 280,000 ayaa la sheegay oo already gaartay mustawihii oo majaacada waa su'aale nabad iyo nolol dalka ma u shaqeeyeen mise waa ka shaqaysteen